ciidamada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada ayaa maanta ka howl bilaabay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Saakay ayaa laga arkayay gudaha magaalada Jowhar waxayna kala hagayeen gaadiidka sida sharci darrada ah loo dhiga wadooyinka hareerihiisa iyo kuwa soo gala gudaha magaalada Jowhar. taliyaha ciidamada taraafikada ee degmada Jowhar Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Aaqil ayaa ugu baaqay gaadiidleyda inay hoggaansamaan sharciga marista wadooyinka. waxaan nahay annagoo in kooban ah oo hadda isu hilqaanne taraafiko iyo dadkan shilalka badan isu geysanayo in aan u dhaxayno maxaa yeelay sharciyadii baa ku yar birar badan way soo gateen laakiin sharciyaadkii aa ku yar waxaad arkaysaa nin asaga gardaran ee ku soo wacanaya ee ku dhahayo waa layga gardaray marmar baan la dhacnaa tabeelooyin baan isticmaalay si ay u arkaan xawaarahay ku soconayaan inta ay la eg tahay mootada inta ay ku socoheedo gaadiidka inta uu soconayo iskuulaadada isbitaalaadyada inaan laga rabin hoon iyo ciyaabooyinka marka kolley hadda tababarkeena adiga waan ku sii dadaalaynaa hadduu ilaahay raalli sidaan uga hortagno shilalka badan ee dhacayo waxaan gaarsiinay adiga degmada iyo isgoysyada gudaha oo dhan waa ka wada shaqeynay kontaroolada bararka kontarool sida geeska kale shaqadan way nagu cusub tahay annaga tababar iyo dadkaan inaan wax ogeysiino aan hadda diyaar u nahay mana si dad cadadda ka badatayna ma nihin hadda taraafikada abuur baan ku jirnaa hadduu ilaahay aadaan annaga iyo dadka aan u shaqeynayna bay qanacsan yihiin oo waxay taagan yihiin muddo baan bogaadaynay shaqadaani aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana idinku soo dhaweynaynaa dadka gaadiidleyda in ay nala shaqeeyaan ay nagula shaqeeyaan si sharciya aan ka codsanayaa hadduu ilaahay Ivan Abdille Mohamed Libala Kivan Star TV Jowhar.